caanka ah ee shirkadda filimada Hollywood-ka iyo dalka Hindiya, Sanjay Dutt ayaa isbuucan laga helay kansarka ku dhaca sambabada, kaasoo gaaray heerka 4. Sanjay Dutt ayaa Sabtidii loola cararay isbitaalka Lilavati kadib markii uu ka cawday in neefsashada dhibayso, waxaana laga soo saaray 2 maalmood kadib. Ilo ay soo xigteen qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya oo ay ka mid yihiin wargeysyada India Times iyo Hindustan Times ayaa sheegay in heerka neefsashada gudaha ee Sanjay Dutt ay u dhaxaysay 90 ilaa 92% markii isbitaalka la dhigayay. Waxaa laga baaray cudurka COVID-19, laakiin natiijadii soo baxday waxay sheegtay inuusan qabin fayraska. Markii dambena waxaa la soo tabiyay in jilaaga uu culays gudaha ah ka dareemay xabadka. Maadaama laga waayay coronavirus, dhakhaatiirta ayaa ka baaray cudurka kansarka, kaasoo ugu dambeyntii laga helay sida ay warbaahinta shaaciyeen. Hase yeeshee, dhakhtarka daweynaya atooraha oo lagu magacaabo Dr. Jalil Bakar ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo ama beeniyo warkaasi, isagoo cuskanaya arrimaha la xiriira qarinta sirta bukaanka. Ciyaartoyga cricketka Yuvraj Singh oo horey ugu guuleystay dagaalka uu la galay kansarka sambabada ku dhaca dhowr sano ka hor ayaa fariin rajo ah u diray Sanjay Dutt. "Waxaad tahay siina ahaan doontaa dagaalyahan Dutt Sanjay. Waxaan garanayaa xanuunka uu cudurkani leeyahay, laakiin waxaan sidoo kale garanayaa inaad tahay qof awood badan oo wajihi kara xaaladaha adag. Waxaan kuugu duceynayaa kuuna rajeynayaa inaad degdeg u caafimaado," ayuu Yuvraj ku soo qoray bartiisa Twitter-ka. Maalintii Talaadada, Sanjay wuxuu ku dhawaaqay inuu nasiino gaaban ka qaadanayo shaqooyinkiisa si loo daweeyo, wuxuuna taageerayaashiisa ka codsaday inaysan warkiisa ka dhigin ku-tiri-kuteen la isla dhex maro meel kasta. Bogga Twitter-ka uu ku leeyahay ayuu soo dhigay warqad uu ku shaaciyay tallaabada uu qaaday markii cudurka laga helay kadib. "Haye saaxiibayaal, waxaan nasiino gaaban ka qaadanayaa shaqada si aan dawooyin u qaato. Qoyskayga iyo saaxiibaday ayaa i garab taagan. Waxaan dadka samaha ila jecel ku boorinayaa inaysan walwalin ama aysan isla dhex marin warar aan loo baahnayn. Jacaylkiina iyo wanaagga aad ii rajaynaysaan awgood, durba waan soo laaban doonaa." Sanjay Dutt wuxuu marka xiga ka soo muuqan doonaa filimka Sadaq 2, kaasoo sida la qorsheeyay toos looga daawan doono dhinaca internetka, gaar ahaan bogga Disney Plus Hotstar, marka ay taariikhdu tahay 28 bisha Agoosto 2020. Xilligaas kadibna wuxuu jili doonaa filimka Bhuj: The Bride of India, kaasoo isagana sidoo kale laga sii dayn doono bogga online-ka ah ee Disney Plus Hotstar.